السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال باجوكتان هايجي لا سبسكرايبتا iyo commentiga sidoo kale like-ta hadii aad ka casharkana commentiga nogla wadaagay wixii dhiirigelin iyo ku saabsan casharada soo dhigno dhan English phrases weero English ayaan qaadanayna maanta. English phrases weero English Number 2 wuxuu dhacay sidatan I wake up at 6 o'clock in the morning. Waxaan toosaa amba ka kacaa hurdada subaxda hore aroortii. Number 2 I take a shower. Kadib waa quweystaa. I brush my teeth. Waxaan cadeeyaa ilkahayga. I iron my clothes. Waxaan feereystaa dharkayga. I get dressed. Kadibna waan labistaa. So luqadda markaa rabtid inaad baratid ardayaal waxa waajib kugu inaad wax grammar la hodhan iska ilaalisid fahanti aad ku mashquulin baro laakiin xaaladahiisa kala baro laakiin ha ku sii mashquulin hadii aad rabto luqadda inaad barato intaasna iga talo iyo tusaalo. English phrases I wake up at 6 o'clock in the morning. Waxaan toosaa 6 aroornimo. I take a shower. Waan quweystaa amba waan soo meedhaa. I brush my teeth. Waxaan cadeeyaa ilkahayga. I iron my clothes. Waxaan feereystaa dharkayga. I get dressed. Kadibna waan labistaa. So casharkeena maanta intaasuu ku egahay wixii dhiirigelin kulliba waa dhankiina maalin walba cashar idin soo diyaariyaa waa idin soo dhigaa inkastoo dad badan u gaarin laakiin adigaagan hadda casharkan uu soo gaaray daawanay waa awoodaa inaad sii gaarsiiso walaalkaaga u baahan inuu ka faa'iideysto isna kulliba cirbad ururta waa masaar hore loo yiri waa idin salaama. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inta hawada ku kulmeen mar